بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كرم الإنسان من سائر المخلوقات وفضله كثيرا ممن خلق تفضيلا. waxaad kusoo dhawaataan barnaamij aynu ugu magac darnay waa noloshaada oo aan ugu talagalnay inaynu ku tayeyno shakhsiyadda iyo qofnimada. barnaamijkan waxaa halkaan idinkala socodsiin doona anigoo ah tababare cabdilatiif xirsi. xalqada u horeysa maanta aan barnaamijkeena kusoo qaadan doonana waxay ku saabsan tahay wax la yidhahdo the power of attitude, awoodda ay uu leeyahay adduun aragu iyo saameynta uu ku leeyahay qaybaheena kala duwan nolosha iyo xiriirka ka dhexeeya adduun aragga iyo guusha ayaynu ka hadli doonaa maanta hadduu la idmo. marka waxaan ku bilaabaynaa adduun arag waxaa la yidhahdaa ama attitude waxaa la yidhahdaa sida aan u arkayno ama ay noola muuqdaan ama aynu u fahmayno waxyaabaha hareeraheena ka dhacaya oo eventiskaas kala duwan hadday ahaan lahayd dadka iyo dhacdooyinka si guud nolosheena iyo si gaaraba u saameynayo. marka attitude marka waxaa la yidhahdaa si guud qaabka aan u tarjumayno ama aan u arkayno waxyaabaha deegaanka aan ku noolnahay ama hareeraheena ka dhacaya waxaa la yidhahdaa attitude baa la yidhahdaa. si guud marka waxaan leenahay attitude-ka ama adduun araggu waa muraayadda qofku uu ku eegaayo adduunyada kale uu ku eegaayo. muraayadda markaa labay noqon kartaa, inay tahay muraayad nadiif ah iyo inay tahay tu wasakhaysan. haddii muraayadda aada dunida ku eegaysaa hu ay tahay tu wasakhaysan ama halaysan, waxaad aragti ama waxa kuusoo baxaba waa dhinaca yacni liita ama hooseeya ee nolosha. haddii muraayadda dunidaad ku eegaysa ay tahay tu wanaagsan ama hagaagsanna, waxaad aragtid ama kuusoo baxa nolosha waa wax wanaagsan ama darfaha qurxoon ee noloshaad wax ka aragtaa. marka attitude-ku si guud waa muraayadda qofku uu ku eegaayo dunida uu ku eegaayo waa mar walba waxaad arkaysina waxay ku xiran tahay muraayadaasu inay tahay tu halaysan iyo tu wasakhaysan. markaa see loo wanaajiyaa ama loo nadiifiyaa attitude-ka qofka waxaan kusoo qaadan doonaa xalqo kale aan kusoo qaadan doonaa, laakiin intaasaan rabnaa inaan sii ogaano. halkaa markaad joogtid waxaa fahantaa marka waxa qof uu u arko mushkilad iyo rafaad iyo dhibaato ayaa qof kale wuxuu u arkaa fursad iyo dheef. waa un laba qof oo eegaya hal shay. halkaas shay baa qof wuxuu u arkaa wax uu wax ka faa-idi karo, qofna wuxuu u arkaa wax mushkilad iyo rafaad ku ah. waxa markaa yacni labada qof kala duway, waxaa laga yaabaa labada qof inay isku background inay isku meel kusoo koreen baa laga yaabaa, waxaa laga yaabaa isku deegaan inay ku nool yihiin baa laga yaabaa, waxyaabo badan inay ka siman yihiin. laakiin waxa kala duway labada qof waxay tahay muraayadda qofba uu wax ku eegay baa kala duway. hagaag marka attitude-ka marka waxaa la yidhahdaa ama adduun aragga waxaa la yidhahdaa qofka haddii mushkiladaha noloshu ay dhinac kasta inta kasoo weeraraan ay xanibaan, ama mushkiladaha noloshu qofka intay ka tambadiyaan ay isku dayaan inay xanibaan, waxa qofka bini aadamkaahi aan laga xanibi karin mar walba waxa waaye waa attitude-ka ama siduu qofku wax u eegaayo. waxaad ogaataa markaa attitude-ka ama adduun araggu waa wax qofku uu controli karo oo uu xakamayn karo. good. qaybta xigteen rabna inaan kasii hadalnaa markaa waxay tahay adduunyadan ama dunidan aad u arkayso wax wanaagsanna ma jiraan, wax liita ama wax xunna ma jiraan, wax sarena ma jiraan, wax hooseeyana ma jiraan. ilaa fikirkeenna ama adduun araggeenna ayaa shay walba siduu yahay ka dhiga. marka this is waa general fact oo xaqiiqo guud waaye. xaqiiqada marka waxaa la rabaa inaad ku ogaatid yacni midabka ama waxyaabaha kalarada leh dunida ka jira, midabkaa shay walba uu leeyahay waxa siiya waa adduun araggeenna ama fikirkeennu siduu yahay wa. ge waxaad ogaataa marka shaqooyinka kala duwaneed qabanayso ama aad hayso, muruqa iyo xoogga iyo powerkaad shaqooyinkaas aad ku qabanayso, waxaa ka muhiimsan attitude-ka ama adduun aragga shaqadaas aad ku wajahaysaa ka muhiimsan. halkaasaan kusoo gabagabaynaynaa qeybta koowaad ee barnaamijkeenna waa noloshaada oo halkaan idinkala socodsiinaya anigoo ah tababare cabdilatiif xirsi. intaan ku kulmi doono xalqadan xalqada xigta waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.